السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkii maxamed cabdilaahi xasan maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxa loo yaqaan broker ama dilaalada suuqan liisanka inoo siiya inaan ka shaqeysano. Marka dilaaladu way kala duwan yihiin, qaar waa market maker, qaar waa non market maker, mid kale waxa la yiraahdaa waa ECN. marka waxa soo dhan baan doonayaa insha Allah inaan videogan ku soo koobo in yar oo macno sameysa ayaan doonayaa insha Allah inaan ka dhigo. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa iyagana free swap account ama islamic account iyo mataqaanaa commission charge spread waxyaabahaas ayaan kaga hadli doonaa. marka ugu horeysa aan isla ogaano ama aan isla define gareyno waxa uu yahay broker Soomaali ahaan waxa uu ku noqonayaa dilaal. kana waa dilaalkii oo online ah. kani waxa uu liisan inoo siiyaa inaynu ka shaqeysano suuqa caalamiga ee loo yaqaan forex trading. marka kan wuxuu fursad inoo siiyaa amaba chance inoo siiyaa amaba inoo saamaxa inaan waxna iibino waxna iibsano ayuu inoo saamaxa. waana ka inoo dhaxeeya inaga iyo suuqa. waa halka aan dhigano lacagta aynu doonayno inaynu faa'iido ama ganacsi ka sameeyno. waa halka aynu u dhiibano ee aynu dhigano weeyaan. marka kana dhowr qaybood loo qaybiyay mid waa market maker oo waxa la yiraahdaa suuqa isaga sameeysta, midna waa non market maker oo isagu waxba ma sameysto. marka bal kuwaas aan isla eegi doonaa insha Allah. marka waxa la yiraahdaa waa laba bal loo qaybiyaa. mid waa dealing desk broker wax soo iskaliyo wixii market maker ah, midna waa no dealing desk broker waxa soo hoosgalaya non market maker iyo ECN ayaa soo hoosgalaya. marka bal waxaan u tagi doonaa dealing desk broker. dealing desk broker waxa soo hoosgala market maker ama brokerada suuqa sameysta ayaa soo hoosgalaya. brokerka suuqa sameysta ama market makerku horta waa qayb suuqa ama waa broker suuqa kamida ama waa brokerada kamida. waxa uu inoo ogolaadaa amba uu chance inoo siiyaa inaan wax iibino waxna iibsano. kan hadda market makerku waxa uu faa'iido ka raadiyaa khasaaraha macaamiishiisa. sababtu uga raadiyaan waxa weeyaan waxa uu ku siyaadiyaa waxa la yiraahdo spread ayuu ku siyaadiyaa. tusaale ahaan trade baad gashay Great Britain baan USD waxa u qornayd inuu ahaa 16 waxaad hadhow arki doontaa markaad in yar ku jirto isagoo ay 34 meelahaas ama waxa ka yarata ama ka badnaatay aduu spreadku intii aad marka hore ku gashay aanu ahayn ayaad arki doontaa. sidoo kale waxa la yiraahdaa fast stop loss ayuu sameeyaa. isagoo aan stop loss-kiiba ku dhaweyn ayuu kaaga dhufanayaa trade-kii iyo dhowr bib u jiraba stop loss-kii ayuu kaaga dhufanayaa. sababtu kaaga dhufanayaan wax kale maaha isagu mar walba waxay dan ugu jirtaa inaad adigu khasaarto oo afka ciida darto ay isaga mar walba dan ugu jirtaa. si walba adiga ku khasaari lahaana uu isaga danba ugu jirto oo ku khasaarinaya. marka bal aan isla eegno non dealing desk broker. non dealing desk brokerku waxa soo hoosgalaya wixii non market maker ah. kuwan laftoodu waa qayb kamid ah brokerada laakiin wuxuu kaga duwan yahay kii hore isagoo shaqo kuma laha stop loss-kaaga take profit-kaaga waxaasoo dhan isagoo shaqo kuma laha. spread-na ma siyaadinayo isagu. wuxuu isaga kan hadaba dan ugu jirtaa inaad adigu guuleysato oo aad macaashto ay kan dan ugu jirtaa. marka haddaad adigu guuleysato isaguna uu guuleysanaya. spread-na ma kugu dalacayo marka wixiisa iyo commission-kiisa iyo wixiisa waa fixed oo wixii aad soo waafaqdeen kan. marka isagu waxbana ma siyaadiyo waxbana ma charge gareeyo waxbana stop loss-kaaga iyo take profit-kaagana midna isagu shaqo kuma laha. marka waxaan u tagi doonaa ECN. ECN waxa la yiraahdaa waa electronic communication network. waxa la yiraahdaa kani waa computerized system waxaana non market maker. marka kani waxa uu inta badan kaga duwan yahay kii hore waxaad si directly aad u wada ganacsanaysaan suuqa ayaa directly ama ma jirayso gacan saddexaad ama gacan labaad oo adiga iyo suuqeedii dhaxaynaysa.
kan wuxuu fududeynayaa ama uu faa'iideeyaa in aad suuqa la maalgashado aad ka ganacsato ayuu faa'iidadiisu weeyaan. Because hadiiba waxaa la yidhahdaa kan sidoo kale wuxuu isu waafajiyaa haddii tusaale ahaan oo kale buy aad ku dhufato waxuu raadinayaa wixii buy ku dhuftay oo dhan traders ama bankis kuwaasuu raadinayaa oo uu kugu dhex darayaa si aad kuwa maaragtay ula ganacsato. marka kan waxay adigii suuqa cid idin dhaxaynaysa ma jirto baa la yidhahdaa. marka ECN inaad fahamteen baa filaya waa electronic communication network waana computerized system isagu. haddaba waa maxay swap? swapku horta waa ribo waana lacag dul saar ah oo la dul saarayo tiradadii aad ku jirtay. waxaa la yidhahdaa 12 saac haddii habeenkii marka ay dhaafto ayay lacagtani dul kortaa mana la yaqaan lacagtani meeshay ka timiday. marka waa la iska xidhaayo inagu mar haddii aan islaam nahay waxa wanaagsan inaad qofku furto free swap account ama islamic account. marka maadaama ay tahay wax riba ah oo aanad adigu shaqaysan ama interestiya islaamkuna taa in badan bay culimadeena ka hadleen wax xaraam baa la yidhi swapku. marka swap waxaan kula talinayaa inta badan haddaad broker ka furato inaad weydiisto ku tiraahdo islamic account iga dhig si aad ribada iyo interestiga iyo xaaraanta iyo waxaanad adigu xaq u lahayn dul saarka aad uga cararto. commissionku horta brokeradu way ku kala duwan yihiin. marka commissionku waxa weeyaan isagu waa fixed oo waxaad isku waafaqaysaan. tusaale ahaan haddii aad isticmaalayso standard oo kale waa 8 baa la yidhahdaa. haddaad mini loss isticmaalaysana waa 4. haddaad micro isticmaalaysana waa 2. haddaad nano lot isticmaalaysana waa 1. marka commissionku isagu waa wax go'an oo halkiisa marka waxay ku xidhan tahay hadba brokerkaad isticmaalayso iyo akoonkaad isticmaalayso isaga commissionku ku xidhan yahay. haddii aan imaado spirit horta waa farqiga u dhexeeya bid iyo aski ama gacanta hore mise gacanta dambe ayaa la yiraahdaa spirit. waana halkii uu siyaadinayay market makerku ee uu kala kaxaynayay. marka haddii sawirkana isaga inoo cadeynaya bid iyo aski tusaale ahaan euro USD kan hore normal spiritka waa 850 iyo 60 gacantii hore gacantii dambe sell iyo buy 850 waxa u dhexeeya 2 bid baa u dhexeeya. bal wide spiritka noo fiirso 48 iyo 68 طبعا inta u dhaxayso waad garan kartaa 20 bid baa u dhexeeya waa halka uu kala siyaadinayay kan market makerka ah. intaas ayaan kusoo afmeerayaa casharkii. waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina. waxaan rajaynayaa inaad wuxuun ka faa'iideen wuxuun ay kaaga baxeen. marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa maanta. assalaamu calaykum.